ما دريمي سيسبدل هذا يعني رجالة كل جوا تصل لهم helista xogta iyo fikirka wanaagsan ee ku jira shacabka kuma helaysid inaad fadhiso xafiiskaaga iyo goobta shaqada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya aragtidaasi ayaa galabtay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho kula casriyay mid ka mid ah maqaayadaha isugu yimaadaan shacabka reer Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka ula kulmay si caadi ah u weydiinayay talooyinka iyo tusaalooyinka ay u hayaan dawladda iyo sida warkaan isbeddelka ay wado xukuumaddu maadaama ay dawladdu ku shaqaynayso aragtida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed qabyaaladda la yareeyo dadka alla hadashii annagana waan ku dhex jireen saas oo baahan ya saas ma dulqaadu rabaa in la adkaysto rabaa in wixna khaldan la yiraahdo walaalayaalow dib hadda waqtigan ma rabno in waxa ugu horeeyo la qabanayo ay haato ilaalada sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed in Soomaalinimada iyo qabyaaladda iyo qabiilka ka wanaagsan وما سنتاج لكن وحرمنا عبشرة شعب كل حفيز لك صبح والله تقعد يقولوا بتيجي كذا وانا عليها عبشرة شعب كأي قبائل أي تبان هيان حفيز تيجان صبح عبشرة كشكتر هنا أركتين موجي أنا حفيز إيميل وعطسدي إن لو صوت درا وحول بوا عبكان ما شاء الله مركوي تالا صبح والبوا الله أخريا وقبلنا دين شيء أما عاو عندنا تي في كشيء دون تعاو مر لبا نبي قرن مركل الصوت برواي إيمان ولشيء قبلها إيتينا وآخرنا هذه dadkii ku sugnaa maqaayadda ma aysan filaynin in galabta uu la shaahi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ha yeeshee markay arkeen waxa ay dareemeen in iyagu ay leeyihiin dawladda iyagoo wajahooda laga dheehan karay farxad ku aadan in ra'iisul wasaaraha uu weydiiyo talooyinka lagu hogaaminayo dalka waa kan mid ka mid ah dadka uu galabta la casriyay ra'iisul wasaaruhu waxaa sharaf iyo qiimo ah in maanta maqaayadii aan ka qaxweynaynay ra'iisul wasaaruhu inoo yimaado oo shaah nala cabo arrin aan filayna ma aha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya inta shacab maqaayad ku jira la yimaado la qaxweeyay ayadoon istaafna celin ayadoon cidna baarin ayadoon wax buuq ay dhawaato aan jirin si nabada ku qaxweynay shaahi cabnay ra'iisul wasaaraha la sheekaysanay si nabadana ku kaltan waa ilaahay mahadi kan waa mid ka mid ah waytarada ama dalab qaadayaasha maqaayadda oo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay isla markaana ay la yaab ku noqotay inuu arkay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka shahaya maqaayadda uu ku shaqeeyo aad iyo aad aan soo dhawaanaysaa noo yimaado nala qadeeyo kubshiin nala cabo sheetar nala cuno wax walba nala isticmaalo aad iyo aad aan u faraxsanahay markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha noo yimaadaba ee nala qaxweeyo noo sheekeeyo nala dhex socdaba oo annaga naga mid ahaadaba asagoo dhex jira kubshiin aan siino waa markii ugu horeysay adana buluuska annaga iyo aariyadan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer kadis ah ku tagay wasaaradaha cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda si ugu kuurgala hanaanka u shaqeeyaan iyo inay u hoggaansameen xilliga shaqo ka bixisto ah 10 saac iyo baro galabnimo ama 4 iyo barkii galabnimo wasaaradda cadaaladda ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda u soo bandhigay